السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديالك سروادا channelka Lawraad kala soo gartaan YouTube. Barnaamijka maanta waa barnaamij muhiim ah. Dadweynaha Soomaaliyeed maanta waxa lagu digayaa in la fududeysan daadadka oo maanta wadanka caada ka noqonaysa. Marka saa ogtiin maanta wadanka Soomaaliya markuu roob yar da'o daad baa ku imaanaya si fara badan oo wax walba khasaarinaya. Marka arrimahaas waxa weeye dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay u fududeysteen. Marka daadadka waxa la sheegaa intay joogaan intay maqan yihiin la isku ma diyaariyo oo lagama fakaro sidii daadadkan looga hortagi lahaa, lagama fakaro dadka oo halista daadadka ugu jira si lagu badbaadin lahaa. Marka arrintan waxa wax la fududeysto ma marka sidaasada barnaamijkan loo soo diyaariyay. Marka arrintan daadadka la dhahayo wax la fududeysto ma ila arkan sawirkan رسالة سوق جدًا وحوي بوندالام بالضف سدي مرة طويل ضف عمل خلا بالضف وحوي بوندوين أو دور كنا تنا أو برئة بالضف سي وهن معنا لهين عمل خلا وتاسوا ما أنت اللي نكديجيا تاسوا حوي وح لفظ استماع مركادي وارنتان لفظ استماع عن السود يهرين مركز صوص أتودات إيمانيو waxa khasaaro badan baa dadweynaha soo gaaraya mar khasaarada imaan karta oo maanta wadanka dhici karta oo dadka maanta ay halis ugu jiraan waa taasas waqti ila ark الموتى تجاوز 2000 أحياء كاملة مشت مع البحر يعني أحياء كاملة اختفت بسكانها دكتور أسامة اختفت بسكانها marka halkaas waxa weeye magaalo daraal dhaho oo Liibiya ku taala baa sanadkii hore waxa weeye dad baa qaatay si lama filaana baa dad ku soo baxsaday dadka waxa weeye wuxuu qaatay xaafado suuq guryo fara badan buu jabiyay marka halkaas waxa weeye 4,000 oo qof baa ku dhintay 9,000 oo qofna la laayay marka waxa weeye taas daadadkaas bay maanta Soomaali halis ugu jiraan maanta yaa dad badan oo maanta degan magaalooyin ka agdhow yihiin xeebooyin iyo wabiyaal baa maanta halistaas ku jira marka arrintan wax la fududeysto ma marka arrintan dhib ku weyn oo wuxuu ka imaanaya waxa weeye dowlad la'aan ka jirta meesha marka dowlad badan baa meesha ka jirta laakiin wax dadka wax loo qabto ma jirto sababtoo ah lacagii canshuur dadka la qaadaa laakiin lacagii dadka looguma adeego oo adeeg dowladda lama helo dadkina waxa weeye ma helayaan adeegii ay xaq u leeyihiin markaas darteed dadka waxa weeye meel iska jabayaan oo dadkii waxa weeye xoolahoodii iyo guryahoodii iyo wax walba ay haysteen eber ka dhigaya marka dowlad la'aan baa waxa sababtay soo jeedaan marka maanta dowladda fara badan baa maanta wadanka jirta waxay dadku qabtaan ama la kulli tuugo wax maanta madax laga dhiganayo marka khasaaraas waxa weeye jeebkeeda waxa weeye dadweynaha jeebkooda ka bixinaya marka waa kanba guryahan si aan ugu jeedaan waxa weeye dad baa guryahooda iskaga tageen sababtoo ah malabo roob yimaado guryahaas waxa weeye biyaha ka buuxsamay marka dadkan waxa weeye iska dadan yar way lacag ku samaystaan ma haystaan marka guryaha noqotay in iskaga tago haddana taskiliima dadkii waxa weeye in wixii yarka haysteen oo masruufka ku saaranayeen dadka iskala tagaya la fiirsan ninkan la dagaalamay mootadan ama arag miskiinkan arag uma isku shaqaysanaya sabab la qaatay oo jidaan haddana oo ku anaa dadkii ay laftigooda xaqiijinay dhibaatada meesha jirto waxaad naf ku gooday ma laakiin maal haday gobol tahay iyo haday wax la cuntaay iyo haday hooy tahay iyo haday xoolo yihiinba intaba saraas waa gaaray marka waxa weeye dhibaatooyinkaas dhan waxa weeye waxa ka timaaday dowlad la'aanta meesha ka jirta waxa dowladdu ku sheegaa waxa weeye dadku wax uma qabtaan dadkana waxa weeye xisaabtan ma yaqaanaan oo marka waxa weeye dadkii odayaasha oo isku qabiilka yihiin waa la gaabsadaa afka laga xirtaa indhaha laga xirtaa laakiinse waxa weeye haddaa saas samaysid oo dantaada aad u qaylin waxa weeye xaqiiqda waxa way ku ciqaabaysaa xaqiiqda taas maanta Soomaaliya aad waxa u noqotay daad baa u noqotay haddii arrintan la isku diyaariyo waa la badbaadi karaa hay'adda la NASA baa cilmi baaris ku sameeyeen marka way cilmi baaridii ku sameeyeen waxay ahayd adduunweynaha meelo qaarkood waxa ku soo badanaya kuleyl fara badan oo extreme heat la dhaho marka macnaheedu waxa weeye magaalooyin iyo wadamooyin qaarkood kuleylka temperature-ka 40 kor buu dhaafaya
oo magaalooyinka waxay noqonaysaa meel aan lagu noolaan karin haddii aan la isku diyaarin. haddana waxa weeye sidoo kale iyo sida Soomaaliya laga arko kale waxa weeye waxa ku soo badanaysa abaar. abaartina waxa weeye waxa kale ku soo badanaya roob oo culus oo muddo yar gudaheeda da'aysa. oo marka roobkaas baa wuxuu noqonayaa daadad baan keenaya. markaas taas waxa weeye ilaa amarkiisa ka sokow hawadan isbedelaysa waxa weeye sabab u tahay. marka arrintan waxa weeye daadadka wax keenaya waxa weeye dhulkii baa xumaanaya. dhulku soo jeed markuu roob badan ku diin si shamita camal kale uu noqonayo adag uu noqonayo hada biyo ma laqay soo jeed. marka biyahaas waxa weeye marayaan kor marayaan. marka biyahaas isku imaanaan daad bay noqonayaan. marka daad noqdaan waxa weeye daad biyo xoog badan bay noqonayaan. marka biyahaas baa dadka dardaraya oo daadad noqonaya magaalooyinkii iyo guriyihii iyo wax walba baabi'inaya. marka arrimahan oo daadadka maanta wadanka jirta waxa weeye geedalaan baa sabab ah. maanta waxa weeye geedii eber baa laga dhigay maanta dhan hadda banaanka maraysid waxa weeye geeda harsasid ma helaysid soo jeed. sababta geedihii waa kuwana waxa laga dhigay qoryo iyo dhuxul. geedaha waxa weeye waa sida ugu fiican oo lagu badbaado daadadka. qaar waxay dhaheen geedaha waa sida ugu fiican oo loogu badbaado kuleelaha faraha badan oo adduunka soo badanaya. marka koow waxaa meeshaas waxaa ka muhiimsan laakiin Soomaali haddaan nahnay annaga waxaan nahnay dad oo shacban ah. hawsheena waxa weeye dowladda hawsheedii ma qaban karno. hawsheena ma niman baa jagooyinka qaatay waa inay hawsh qabtaan lala xisaabtamo. dadweynaha inay xisaabtamaan way oo la caaway canshuurtana qaadeen adeegeedii aaw in la xisaabtamo kuleetiga lagu dhigo dowlad fiican la helo. marka la abuuro geedihii magaalooyinka banaankooda geeda lagu abuuro magaalooyin gudaheeda xitaa geeda lagu abuuro. sababtoo ah maanta Soomaalida waxa weeye geedo aan neceb yihiin baa isdhex. maanta haddaa magaalo dhexdeed maraysa xitaa ma arkaysid geed oo jidiska lagu abuuro ama jardiimo oo dadweynaha leeyihiin oo lagu harsado maalintii. marka geedahaas oo la abuurayo waxa weeye laba faa'iido leeyihiin. marnana kuleylka badan bay yareynayaan. daad roobna markuu yimaado daadadka way kala yareynayaan sababtoo biyihii wax celiya helayaan. xitaa dabaysha socota xitaa iyo dabaylaha iyo boorka socota xitaa way kala yareyn lahayn. marka faa'iido badan bay leedahay. haddana wax kaloo meesha laga rabo waxa weeye in la dhiso meelo biyo xiraan ah oo biyihii lagu khasbo inay meel maraan oo magaalooyinka banaankeeda la mariyo. biyo xiraan saas loo eegaya waa arrin dowladnimo iyo injineernimo u baahan way. dowlad markii la helo baahan la samayn karaa. marka biyo xiraan marka la sameeyo waxa weeye dadkii waxa weeye magaalooyinkii iyo xaafadihii daadadka soo gaari lahaa waa laga badbaadaya. haddana xal kaloo loo baahan yahay waxa weeye in la sameeyo meelo biyaha lagu kaydiyo. hadda roobkan oo tirada badan oo daadadka iska ordaya waa biyo badan oo laga faa'iideysanayn way. marka normal ahaan adduun weynaha kale oo dhan meelahan oo kale ay sameeyaan biyaha lagu kaydiyo. markii loo baahdo baa biyahaas halkaas laga qaadanaya. inta kale halkaas lagu kaydiyaa. haddana waxa kaloo ugu muhiimsan waxa weeye daadadka markuu yimaado qalabkii dadka lagu caawin lahaa lama hayo. sababtoo ah dowlad ku sheega waxa weeye lacagtii niman baa iska masruufta. qaarna waxa weeye waa lagu galaa doorasho lagu galaa. qaarna waxa weeye dabaqyo baa lagu dhistaa. marka waxa weeye qalabyadii oo dadka lagu badbaadin lahaa ma jirto. marka daad yimaado kale waxaa loo baahan yahay laashash jiriiriisa loo baahan yahay dadka lagu badbaadiyo. dadka qaarkood baa waxay yihiin dad oo duqeeya yihiin oo aan socon karin oo aan dabaal ka bixi karin oo aan tabar u hayn inay dabaashaan ama biyahan dhibayaan. dadkii qaarkood baa jiran oo hospitaal yaalla wixii lagu badbaadin lahaa baa loo baahan yahay. marka waxa weeye dadka qaarkood baa hadday biyo la tagaan wax la daba tago lama haysto. marka waxaa loo baahan yahay laashashkan oo kale loo baahan yahay iyo dad qalabaysan oo saan oo kale tababar la siiyo in la helo. haddana waxa kaloo loo baahan yahay waxa weeye helikobtero loo baahan yahay. hadda daad markuu yimaado jidadkii baa xirmanaya. dad baa meel ku goodoomaya. marka baabuur meel soo lama helayo. marka haddii helicopter la haysto waxa weeye dad goodoomay baa meel lasoo daldali karaa. dad oo jiran oo emergency dhakhtar u baahan baa lasoo qaadi karaa. marka taas waxa weeye wax dowladdu ka bixi karta wey. marka waxaa loo baahan yahay in la helo helicopteradan oo kale
يا مركب هليكوبتران كل مركب الهلا أي لفتي وضع تفايدة كلا كينيس وضدك حويه dadkii baaqaar waxay baranayaan baaladnimo bay baranayaan qaarana waxay baranayaan sida loo dayactiro diyaaradahan marka faa'iido kale bay keenayaan laakiin waxaas dhan waxa ka horeysa in dowladnimo runa la helo odayaal barnaamijka laga isku geeyay marka la leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaragti dambe